السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو wacan dhegeystayaal daawayaal halkaad joogtaanba halka nagala socotaan waa ayatiin media production fadlan daawade haddaad ku cusub tahay youtube channelka ayatiin media fadlan subscribe like share hana iloobin inaad rukumato gambaleelka saad u noqotid qofka ugu warhaya ee daawada fiidiyaasha cusub mahadsanidin baafin maanta waxaa la baafinayaa wiil da'yar ee ku dhumay dalka Soomaaliya wiilkaasi magaciisu buuxo waxaa la dhahaa Ciise Cabdi Maalik Sacad wiilka sawirkiisa aad aragtaan waxaa noogu wardambeysay bay dhaheen cidii dhaleen wiilka galabnimadii Sabtida taariikhda markay ahayd 6dii bishii 6aad sanad 2020 ama bisha hijrida saad u taqaanaan 14 bishii 10aad 1441 waxaad wiilkaas kala heli kartaa ama kala soo xiriiri kartaa telefoon number ah eber 615 77 79 ama eber 612 67 eber 9 wiilkaasi cidiisii ugu dambeysay galabnimadii Sabtida taariikhda 6dii bishii 6aad 2020 ilaa imika aan la helin maqal iyo muuqaal intaba warkiisi xataa ma hayaan fadlan si naxariis leh waxaan niga codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed meel walba adduunka aad ka joogtaan haddii aad aragteen wiilkaas Ciise fadlan la soo xiriira si dhaqso ah waalidiintiisii ilaan waa dareemi kartaan qof walba oo beer wax dhalay waa dareemi kartaan murug iyo dhib iyo intaba xataa waxa laga yaabaa waalidiintii dhaleen inay cuntada aan cunin ilaan wiilkoodii ay nolol ii geeray intaba ku hinin waana dareemi kartaan wadanka Soomaaliya oo iska dhib badan yahay marxaladda lagu jiro sanadahan dambe ilaahay wadankiina nabad ha noogu dhigo waxaan si naxariis leh mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanaynaa fadlan haddii aad aragtaan commentiga nagu soo qora haddii kalaan telefoonka meesha ku qoran fadlan si degdeg u garaaca waa wiil Soomaaliyeed waa wiil walaalkiina ah waa dareemi kartaan kulay qof walba walaal uu leeyahay wiilna uu la dhashtay ama wiil uu dhalay ama caruur adiga aad dhashay ka soo qaad ama wiil walaalkaaga ah waxaan ummadda Soomaaliyeed ku go'aangelinaynaa inay wiilkaas si degdeg ah noola soo xiriiraan Ciise Cabdi Maalik Sacad Ciise ilaa hadda meel uu ku dambeeyo adduunka lama ogo laakiin waxa macquul ah inuu joogo guri Soomaaliyeed ee gurigaasna insha Allah iyagana ay raadinayaan wiilkaas meel ay cidiisa kala xiriiraan kulay waa wiil macquul ah oo xogaa warbixin bixin kara laakiin waxa laga yaabaa caruurtu way iska dhib badan yihiin inay asaga dhib u arkay waalidiintiisii laakiin si kastaba ahaatee waxaan idinka codsanaynaa fadlan wiilkaasi cidiisii aad bay u raadinaysaa xataa waxaa jira aabihii oo xanuunsan fadlan si degdeg ah loo soo xiriira waa dareemi kartaan xanuunka ay leedahay awlaad waalidiin ka maqan waalidiintu markay awlaadooda ay maqan tahay ma harsadaan ilaan waa xanuun qof walba caruur soo dhalay wuu dareemi karaa caruurtu waa qayb ka mid ah nolosha bini'aadanka fadlan si mar kale markii ugu dambeysay ayaa idinka codsanaya shacabka Soomaaliyeed waxaad nahay dad wanaagsan dad qalbi nadiif ah fadlan wiilkaasi nagala soo xiriira commentiyada iyo lambarka meesha ku qoran intaba waad ka heli kartaa waalidiintiisa waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan channelka asxaabta ku xiran mahadsanidin inta cusubna ku soo dhawaada youtube channelka ayatiin media fadlan noo subscribe gareeya laagtana ha ka iloobin gambaleelkana furo saad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada fiidiyaasha cusub sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu